السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا فيها فيديو iyo waraysiyo la qaaday oo la googeyay oo saal isla dhex wareegay social media waxa isweydiin leh waliba aan dadka sida u soo jarjaray wax sida maaragtay fidmada uga shaqeynaya waxaan weydiinayaa hablihii la laayay ee la kufsaday iyagoo ka hadlaya anigu ma arag kufsiga iyo dilka inaga daaya iyo xadgudubka hablaha iyo haweenka lugaha iyo inaga daaya iyagoo le maan arag waxaan jeclaan lahaa inay iga soo jawaabaan dumarku shay ay iyagu leeyihiin bay u haystaan nimanka kufsigii ka digigixi waayay ee intay kasii jeesteen iska indho iyo dhaga tiray nimanka dilkii usoo dhaafay hablahoodii Soomaaliyeed masaakiinta ah ee wali ka dhigala sheekh iyo shariif ba ee haddana ka gubanaya buug baa meel la keenay iyo qof baa yiri war ilaahay aynu ka baqno aynu iska deeno sida si isugu dhaano bulsho waxa lagu gartaa sida ay qofkeeda jilicsan ugu heeliso iyo sida ay isaga qabato dulmiga aynu dulmiga meel uga soo wada jeesano dadka taa ka gubanaya diinta ay noo sheegi karaan annaga ee ay ummadda la wadaagi karaan maxay tahay yaa tolo dadka maxay moodeen meena indha iyo dhagalaagi yihiin bay dadka moodeen nacalad baa kuga sacata haddii ninkaaga aad diido maxay u diidaysaa marka hore waxay u diidaysaa meesha ku jirta hadday yana ku nici karin qof bini aadan ahayn hadday ku nacdo ku tiraahdo anigu furiin baa ka doonaya oo u soo dabo marto oo aad xoog wax kaga qaadato dil iyo faralaab ma adaale suuradee weeyaan suuradda odhanaysa quraanka haddii ma kuugu dhaco aday iska leh saad doontaad ka yeeli kartaa meeday war ma annaga ma waxaad moodaysaan dadku inay war dadku diintoodii way barteen diintii waad qaraadhiseen diinta ilaahay qaraarka ka daaya ilaahay waa qurux buuna jecel yahay dadku diintooda way yaqaanaan way barteen way jecel yihiin wixii ay u ogashayna way og yihiin waxa ka hadlinayaan waa ogaanshaha ay ogaadeen diintoodu sida ay u bishay iyo sida ay boqorada uga dhigtay iyo sida aad ugu guuldareysteen waajibkiini bal dadka kufsiga u doodaya eega wax kufsi u hiilinaya mooyaane annagu ma hayno dee nimankii Soomaaliyeed ee meelaha taagtaagnaa ee hadlayay yaa mikrofoonka marka kale way haystay mikrofoonku u fududa wax u hiilinaya mooyaane excuse u sameynaya mooyaane wax ka hiilinayo le aynu la dagaalano meel uga soo wada jeesano annagu ma hayno idinku ma haysaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta waxa idinku filan aragti in waraysigeygii intaa yar sida loo soo googostay sida looga qaylinayo ilaanin inaagis raba oo isu yar cadhaysano isira sasabtay oo isira xulxutay oo xaalkoodii gutay ila kufsi noqon mayse kufsi way noognahay waxa uu yahay hadana iyagu ogeyn de anigu si aan ugu translate karayo karan maayo ya waxa inoo cad ya oo marag doonta ah inay kufsiga raali ka yihiin waayo kufsigii iyo dilkii waa kuwa aan joog ka oranayn ee ka digigixi waayay in lagu kufsado iyo in lagu dilo raali bay ka yihiin simply bina aadan ba uma tiidba oo hintaada iyo tiiraayadaada midina ma dhibto midina ma gasho mid kale sida ay kufsiga u difaacanayaan maxay ugu difaaci waayeen masaakiinta tolo maxay ugu difaaci waayeen caruuraha aabayaasho dayaceen ay marba luuq mid ku mehernaayaan hor leh gaajad iyo dayacu ka dhargay hooyooyinka macaluusha oo baqteeya ee nimankoodii nool yihiin marba ay mid mehernaayaan maxay uga digigixi waayeen oo uga hadli waayeen haybsooca dadka islaamka ah ee nala dhashay nala dunta iyo deegaanka ah ee habeenii maalin gabdhaha guursadaan laga furo xoog iyo sandulaha laga furo ee laga dhigay qolka xaaraanta ee la duleystay
cidlada lagu xidhay tolo kuwaan maxay uga hadli waayeen diintu maxay ka tiri